رئيسه waxaan si mug iyo miisaan loo taageerayaa qurbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dareenka shacabka wax weyn ka bedeshay wax badan faahfaahsiisay runtiina ahayd qodbad taariikhi ah oo waxyaabo fara badan oo dhinacyo fara badan taabanisay ayaan marka hore si mug iyo miisaan loo taageerayaa marka labaad maanta waxay ku beegan tahay 20kii February 1982kii waxay ahayd maalintii la xasuuqay da'yarta iyo xoogga iyo barimageydada dadkeena Soomaaliland ama gobolada waqooyi ee lagu soo duulay waxay ahayd maalintii hubka casriga ah iyo kaaraha iyo baybeega loo adeegsaday da'yarta sidee jir laga bilaabo ilaa 20 jir ayaa jeelada laga buuxiyay oo u badnaayeen dadkaasi waxay cadeeyeen nimankii bariga joogay ee jeelasha ku jiray sidee jir 9 jir 10 jir ilaa 20 jir ee dadkaasi u badnaayeen halka lagu xasuuqay lagu soo xidhxidhay ee loo adeegsaday beebeega iyo kaaraha iyo hubka casriga ah waxay ahayd maalintii ay ka dhiidhiyeen dhalinyartii iskuulada iyo macallimiintu waxay ahayd maalintii ay dhagax tuurka xoog la sameeyeen waxay ahayd maalintii ay maxkamadda markii la saarayay dhalinyaradii ay ku weerareen oo ku guuleysteen oo ilaahayna ku guuleeyay waana tamaanta Soomaaliland ay ku dhisantay halkankii maalinta ay bilaasay dhalinyaradu dhagaxii ugu horeysay tuurtay ilaa maanta wata Soomaaliland ku dhisan alxamdulillah rabbil caalamiin miladeedina waynu haynaa Allahu akbar Soomaaliland noolaato ninka la yiraahdo farmaajo waxa uu la xusuusinayaa boogihii naafadii guryaheennii dusanaayo aynaan weli dhisan iyo wixii uu inoo geystay gumaysigii markaa jiray uu la xusuusinayaa markaasuu ayers ka leeyahay apologize baan bixinayaa Soomaaliland apologize ma baahna Soomaaliland waxay u baahan tahay in la xisaabtamo in runta laga sheego in qof waliba wixii uu geystay lagu qaado u baahan tahay laakiin apologize maynu qaadan mayno waynaga go'an tahay Soomaaliland go'aansitaageedu waa muqaddas lagu murmi maayo waxa Soomaaliland way tashatay way dhaqaaqday horumar bay gaadhay waxa wadan madax banaan weeye caalamkuna sidaa